marwadiisa Ruqayya Cabdullaahi Maxamed oo iska calmaday dadka go'aansadayna inay baabi'iyaan dhaqan soo jireen ahaa oo ka hor imaanaya diinta islaamka salkana ku haya haybsooca guurka Soomaalidana ay caado wanaagsan u haysato. muqdisho kuma cusba in maalin walba lagu dhinto laakiin waxa sheeko cusub ah in la gubo qof nool dabadeedna loo diro qabriga dhacdadan ayaa salka ku haysa guur dhex maray dadka loo yaqaano 25ka ama beelaha la haybsooco iyo gabar ka dhalatay beelaha afarta loo yaqaano ee Soomaalida. marxuum Axmed Mukhtaar Saalax gaarayihii godka u galay jacaylkii guuleystay waxa uu dunidani faaruujiyay abaare 11kii subaxnimo 20kii September 2018 kadib weerar uga yimid qaar ka mid ah ehelada gabar uu u guuriyay wiil uu adeer u yahay waxaana dilka marxuumkani loo adeegsaday baangado kadibna isaga oo dhaawac ah ayaa la qabadsiiyay dab kaasi oo sababay inuu ugu dambeyn u geeriyoodo marxuumka. shalay marka wiilkay waa inta jooga gaar inta ku sameynay cidna ma la joogan ay soo weerareen gabar aydeeda saddex rag shanay ayaan adiga wiilkii inta lagu soo weeraray warna lagu mudi faasa lagu dhiftaadane oo dhacay asoo dhacay oo tacbaan ah bas inay ku fiican way gubiyaan oo dhintay markoo dhintay wiil ay si garaacay qab aaway dadka xaafadda joogay aaway marka waxaas dhacayaan dad ma jooga xaafadda dibada wiilashu inta ka shaqeynaya asaga la shaqeynaya taa ma joogin wiilka oo gabadha qabo aabihiisa iyo habartii maxkamadda laga wacay shalay maxkamadii ay journalist ku haysta ameedkana dhaca xagga la geeyay bas wallahu alayhi gudbiya idinka intii mid laba gabdhood ay helaan ay qabsadaan wiilasha waa kala ordaan aan wiilka cidna say ugu fiicnaa ninka gacanta ii waayo ahay bas ninka cid u roonayo ahaa bas sigaaro yahay ilmo badan waa ka tagay. waxa uu dunidani uga tagay 12 caruur ah oo ay ugu yartahay gabar 3 bilood jirta iyo laba xaas waxaana sharaxaysa qaabka ay wax u dhaceen Saciida Aways Xaaji oo kamid ah xaasaskiisa isla markaasina ahayd bahda weyn ee marxuumka mootan. gabadhii wiilka marka la saraacsiiyay waxay tiri iima ahaatay tir abgaal iyo jareer ay ii heshiiyay man ii noqoto war walaal islaam leeyahay ummadan ilaaha abuurtay islaamka oo dhan way isguursadaan maayay tir jareer haranoo naga yahay ma guursano waa gabadha hooyadeed habarta 3 bir miya 2 bir iyo xorneed dooda way socotay shalay maxkamad in lagu soo kala baxo gabadhina waa bal keenabo yaani arinta la xaliyo markay ragayna maxkamad jiraan ay ogaadeen guriga dad ay joogan Axmed kaligiisa meeshan ku shaqeynayay Axmedkii banaanka ugu yimideen ay ku dileen la xiro waxaad sharaxdaa bal qaabka dilinka u dhacay Allah si xun ay u dileen dil aan sheegi karo ama afkeyga soo mari karo ma ahan noloshay ku gubeen iska dhaafay islaam qof ah yuhuudka xataa taas looma dilo see yeeleen qofta isku kordamisa anigoo ahaa xaaskiisa weena ahay si xun ay u dileen Axmed way dandareesteen way dileen Allah miskiin oo weligiis dad ma dulminin hooyo aab dadka waxa dad weynaha waa la yaqaan caalamka oo dhan laga ogyahay dadka arabtiin weydiiya banaanka baxa qofka arabtiin wareesta walaalayaal waa idin bariya igu duceeyni kaas dadka dilan ilaaha ka sabaabina insha Allah wax kale sheeg karmalaha. qaar ka mid ah caruurtii uu ka geeriyooday marxuum Axmed Mukhtaar Saalax ayaan kala sheekaystay dareenka ay ku reebtay geerida aabahood iyo sidii ay wax u arkeen. abe waxa makal wadili waxa loo baangada iyo waxa loo waxay ibn digo oo geedka suun leh ee barkaliyo adiga kaal soo dhow magaca Cabdi Xafiid iyo warabal maxaa shal dhacay abe iskaliisa inta shaqeeyay dhalinyaro kale laba u joog waa ka tagtay iskaliisa loo imaad adeerkii waa maqnay iskaliisa loo soo joogay in lagugu yaso qabiil aad ka dhalatay wax weyn kama aha Soomaaliya waase dhaqan laga soo minguuriyay juhulo aan diinta islaamka haysan xilliyadii adoonsiga uu ka jiray dunidan. Soomaalida qaar waxa ku dambeeya dhaqanka haybsooca guurka oo reerka gabadha ku kalifa inay u diidaan gabadhooda
ragga geeya iyaga oo ka cararaya inay in ku noqoto hadhow. su-aal ku adag ka jawaabisteeda qof walba oo mas-uul ah kuna saabsan haybsooca guurka ayaan hordhigay xildhibaan cabdifataax oo ka mid ah baarlamanka aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. adiga waxaad ka mid tahay xildhibaanada aniga igu matala baarlamanka soomaaliya, aniga hadda kula hadlaya. marka soomaalida xildhibaanada baarlamaanka hadda ka jira xildhibaan walba waxa uu ku matalaa beelaha ka jira soomaaliya, aniga adaa igu matala. haddii aan maanta ku dhaho madaxweynaha gabadhiisa waa Farmaajo ama ra'iisul wasaare gabadhiisa ayaan isfahanay oo inaan isguursanaan isku fahanay, ma kula tahay inaad ii dooni lahayd mase kula tahay inay isi lahayn ayaga? horta waa mahadsantahay shaashaale. guurka sidaan kuu sheegay waa isfahan u dhaxeeya labada qof inay raadi isaga noqdaan. at-taraadi waa shardi ka mid ah asaaska isguursiga. waxyaabaha kale horaan kaga hadlo diinta kuma xusna. waalidka maanta Farmaajo hadaad ka doonatay hadaad khayr ka doonatay ayaga waxaa u banaan inay ka fiiriyaan ilaan madaxdii dalka waaye inay sharciga ilaaliyaan loo baahan inay ka fiiriyaan sharciga iyo diinta waxay ka qabto. shaashaal haday ku soo baxdo inuu dilaa yahay mooriyaan yahay inuu fidno wada yahay inuu balwad la yahay inuusan mas'uuliyad qaadi karinna xaq waxay u leeyihiin inay yiraahdaan gabadheena bohol kuma toori karno. laakiin intaasi waxaan ahayn haday ka hor yimaadaan oo automatically ay yiraahdaan shaashaale waa beesha jareer weyne ay yiraahdaan taas waxay tahay haddee waxaan ku wada joogno oo sharci ah ma jirto. sharci aan wada ilaalinayno ma jirto. nin walba waxa waaye dhankiisu waxa waaye ka daranaya. marka aniga waa ku dooni lahaa jawaabta, laakiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay wada hortaala aniga aad markaan u doonano. ujeedada weydiinta su-aashaasi ma ahayn mid aan uga gon leeyahay kaftan ama ku macaanaysi sheeko, balse waa tusaalaysiin la xiriirta sidii sharciyada jinsiga iyo qoyska ee dastuurka dalka loogu dari lahaa ka hortagga haybsooca guurka oo wax caadiya ka noqday gudaha dalka. ogow waxa aan ahay gayaan geeya gabadha madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha, balse waa calaan casha oo ay timo ka soo baxeen inay xilahayga noqoto xitaa haddii aan si dhaba isu jeclaano. waana cudur ku dhacay qulubta Soomaalida maanta marka laga soo reebo in yar oo Ilaahay u nimceeyay. maxamed cabdiraxmaan mukhtaar oo ah wiilka sheekadani ay ka bilaabatay ahaana wiilkii ay Ruqyo Cabdullaahi Maxamed ka dooratay ragga, sidoo kalena ah wiilkii uu adeerka u ahaa marxuumka geeriyooday ee u gargaarayay jacaylkooda, ayaa sharaxaya sida jacaylkooda uu ku bilowday, wixii ay isla soo mareen iyo miraha ka dhashay jacaylkooda. laba sano wada socnaa gabarta walaasheeda ah kulay habarteeda xawad waa isla deganahay xaaladeena waa ka warhay jireec la wada yahay, laakiin dhanka diinta bini'aadamka oo dhan waa isku hal. muslimnaan inaad dhahdo gaal waaye xaaraan u yahay gabarteeda ma ku xirmo. jireer waaye ay waaye xaaraan waaye, marka maba ugu xirmato gabarteeda ma ku xirmato. marka aniga mana qabataa inaa qofka bini'aadamka muslimka inay saas loo. Ruqyo Cabdullaahi Maxamed waxa ay go'aansatay inay la noolaato maxamed cabdiraxmaan mukhtaar oo ah wiilka ay nolosheeda u doortay, waxaana ay sheegtay in jacaylka uu ka weyn yahay qabiilka. Soomaalida ayayna dardaaran ku tiri qofka bini'aadamka hadduu qof jecel yahay qabiilna meesha taagan. qabiil dhamaan weli qabiil ma qiimeyn maan yaa taa ma badin qofka bini'aadamka hadaa jeclaatid qabiilkiisna weydiina. maxaa ku soo jeedin Soomaalida idin daawanaysa, maxaa kula talinay waalidiinta dadka isjecel, maxaa tala u jeedinay? qabiilkina iska dhaafaan, qabiil waaba laga dhamaad ma aan qabiil meesha ma taale dadka hore ku dhaqmi jirnay. waalidka qabiil kuma adeegaan dad la isku dad la dhiig leen isku daayaan ma qabiil waxa taraa ma qofka bini'aadamka dad si dhab u jeceshaan qabiil dhan weydiinaysa. war hoy dunida yaan lagu kibrin nabad ha loo daayo. Cabdishakuur Shaasha, RTN, Muqdisho.